maxamed xuseen kaahin oo ah muwaadin ku dhaqan magaalada Togwajaale ayaa cabasho ka muujiyay barasaabka gobolka Gabiley iyo xogayaha dawladda hoose ee degmada Togwajaale kaasi oo uu sheegay in si sharci darro ah looga joojiyay dhisme dhul uu ka waday magaalada Wajaale isla markaasina uu dhisayay si sharci ah isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri waxaan ka cabananaa maamulka gobolka oo ah barasaabka iyo xogayaha dawladda hoose ugu daraado oo Wajaale anu waxaan ahay shirkadda كاهن كراسس محمد حسين كاهن مدو شن يلا بعطن عشاء وحن كنت هجنا هاي سي شرع درع أو عند العيد محكمة يو مامور كله أو يجي مدينة شرين حقيقها يبرساب كمويان وحن أقرأ ساك شرع دن إن هنتيذا إذا عدي عن كلها أما مامور كويجي سو شوابه أما شرع الدولة المحكمة ديت أو صحة لا يكينوا كل شيء شكله waxaa dhacday in ay labadiiba ku tuureen waraaqihii aan u qoray ee ahaa ku socday xogayaha barasaabka wasiirka arrimaha gudaha wasiirka xigeenka anigoo ah nin muwaadin ah oo shirkadda dhismaha leh oo wali hadda hayn wax alla wax laga joojiyay saakana lagu soo doontay gurigayga anigoo on war ka hayn shaqana aan bilaabin wali hadda waxa weeyaan ka codsanaya madaxweynaha iyo dawladda sharafta leh dhamaanteed ina kaahin oo mujaahid waxaan ka codsanayaa in si degdeg ah la iga soo jawaabo sheekada oo saaka waraaqihii aan siiyay barasaabku ay u kaayahay oo ku tuuray taliyaha booliska Wajaale hortiis jawaab la'aan oo ku nagu haystaan ninka nagu haystaan uu yahay barasaabka iyo xogayaha Wajaale waxaan ka codsanayaa in cid kasta oo wax garanayso Soomaaliland in ay si degdeg ah uga jawaabto sheekada xeer ilaalinta madaxweynaha arrimaha gudaha dhamaan in si degdeg ah uga soo jawaabaan warqadaana aan geynayo meel kasta oo uu ka jiro sharciga saxda ah ee ka jira Soomaaliland sharciga shaqeynaya ama khaladka shaqeynaya waxa weeye in keenayaan xogayaha Wajaale bal wixii sharcigan ay ku diidayaan waray qanciya waa maxay in la isqanciyo xaq loo leeyahay xaq ugu baan leeyahay anigu waxa weeye 25 cisho shaqo taagan oo sharci lagu joojiyay wali hadaan oo ay ugu socoto shaqadii dhamaan wixii aan ku waday ee kharsha حقوق البلادنمada ama muwaadinimada mar hadaan leeyay meesha dawladnimo talabad xogayaha dawladda hoose Wajaale kuma xukumo barasaabka laftiisu wuxuu yiri kuma xukumo cidii ku xukumaysa u doono in lacagta ninka saaka lixdii gurigay u soo diray askariguna waa barasaabka way anigoo iska hurdo shaqadii ku joojiyay sharafta ay leeyihiin maamulku aan darteedu joojiyona sharci ahayd waxaan ka codsanayaa maxamed kaahin iyo cidii ay qusayso arrimaha dhulka ama arrimaha gudaha inay si degdeg ah ugu soo jawaabaan iyo 20 cisho bilaa maxkamad 25 cisho taliyaha Wajaale 6 saacadood bay qabtay maanta 6 saacadood la keenay warqad maxkamadeed waa joojinaysaa 6 saac waa la keenay wax warqada isagu wuxuu yiri wax fasax baad wax maxkamad lama geeyay xitaa ku haysana arag wali Axmed Xasan xogayaha iyo barasaab labada nin ee had iyo jeer qabsiga ama hadalkeena waa labada wali ma arag barasaab xukuma barood socda oo laba nin wax soo saxiixana garin ninka garin baxta kuwaas dalafta dawladda uu joojiyay ilaa hadda ilaa saacada geesta kale maraan isku daynay inaanu cabashada muwaadinkani wax ka weydiino barasaabka gobolka Gabiley iyo xogayaha dawladda hoose ee degmada Togwajaale ayaa aanay noo suuro gelin kadib markii ay qaban waayeen telefoonadooda gacan waa Sikriye Nuux Ibrahim warbaahinta SBC magaalada Wajaale.